munaasabadani oo ahayd mid seer sare loo soo agaasimay isla markaana musharaxnimadiisa uu kaga dhawaaqay musharax cali maxamed caraale ayaa waxaa ka soo qayb galay siyaasiyiin waxgarad haween dhalinyaro fanaaniin qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellaha Dhexe gudoomiyaha ururka haweenka qaranka Soomaaliya Batuula Sheekh Axmed Gabale ayaa sheegtay in musharax cali maxamed caraale ka haween ahaan ay taageersan yihiin musharaxnimadiisa وحوالتها إلى السير إلى المال تتقيد بالنوم حفلة وقوبة بقى المشرح لماذا مدحوينها دولة كذا لنا إن شاء الله تعالى ورد الهلال إن شاء الله أدعم وحانا وانا سمعي أي سنة أفتية هي كنت نقولنا الله كرم وفي عن الله كبيرنا إلى عدودنا أولنا يوها لماذا الأمريك الله كرم مدحوينها إن شاء الله تعالى هدينا يقولوا حلك عليه المبطن sidoo kale waxa iyana munaasabada ka hadlay qaar ka mid ah siyaasiyiintii ka soo qayb gashay munaasabada maanta in gabdhaha aan u sheegaa labada gobol oo ilaahay ku guuleysayna wax u qabatay annaga meel walba waan ku xaqinaa 72 xaq waxaan u leenahay inaan helo 21 gabdhood حفلة دكتور علي محمد عرالي مشرح وكسو قدبينيو إنه مشرح كي يهي لبدا قبل اسمه سوء يهي قبدا وحا إلهي مهديسة المشرحين فربضان مقالدا مانت الجوغان قارنا إيسو سعودان علي محمد عرالي ومشرح مدحوينها maamulka loo dhisayo Hirshabeelle State waxa uu maanta markale Jowhar kaga dhawaaqay inuu yahay musharax madaxweyne balanqaadyo fara badan la sameeyay waxaan rabaa inaan idin sheego inaan ahay musharaxa labada gobol ugu mana dhalan maanta sidaad ogtihiin bal 2002 anoo wasiir dawladda Carta ka ayaan in magaalada Jowhar aniga iyo gudoomiyihii gobolka Maxamed Dheere Allah u naxariisto Maxamed Cumar Xabiib Maxamed Dheere barigaas oo Soomaaliya ay ku socotay federalismka ayaa labadeena waxaan go'aansanay inaan ka tagno dawladda dhexe oo aan bilowno koonfurta Soomaaliya oo wax federaal oo ka jirin hase yeeshee nasiib darro dadkii aan ka dhalanay way nala garawaayeen ayaa igu kaliftay inaan maanta Jowhar imaado oo aan ka shaqeeyo labada gobol in la isku daro markaan leeyahay fariin waxa waay hadda fariin dareen ayaa qof kasta gurigiisa u yimid waxbarasho la'aan iskool la'aan caafimaad la'aan biyo la'aan amaan la'aan waxaan ballan qaadaa qof kastoo ida ka mid ah inuu nabadgelyo helo waxbarasho helo caafimaad helo isbitaal helo Ismaaciil Cabdulle Sabriye Universal TV Jowhar